salaan kadib 17 bishan aan ku jirnay March 2020 waxaa dawladdu go'aamisay ka bilaabato 19 bisha Mars in aan wadanka soo gali karin xamuul aanan ahayn raashin iyo dawo wixii inta ka baxsan inay mamnuuc yihiin oo sharci darro tahay sida aad arkaysiin waxaa shalay daraad labadaba kala yimaadeen boorsooyin si tuuganimo ah lagu soo gashay jaad lagu soo gashay halkan inagoo hadda la dagaalamayno cudurka coronavirus wadamadii hore u maray caafimaadka iyo dhakhaatiirtoodu ay aad u heersareysay capacity weyn oo kula tacaalaana leh ayaa cudurkaas iska celinla Soomaaliya oo lagu tilmaamay wadamada ugu hooseeya inay iska celin karaan cudurkan in loo keeno wax ka baxsan daawo iyo cunto loo baahan yahay maanta waxay tusaysaa dadku in dad qaarkiis oo dhaqaale ka raadinaya ay sumeyn karaan dadkooda sidaas awgeed waxaan runtii rabaa inaan halkan uga bishaareeyo una bogaadiyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed shaqaalaha airportka oo taagan maalintii oo dhan diyaarad kasta oo timaada iyo waxa saaran oo dhan x-rayna la marsiiyo ciidankeenana jooga uu aad u controlo waxaad arki kartiin in kalooradii ku jiray maxaa la yiraahdaa oodkaca ay soo qabteen maadaama uu jaad ka hooseeyay balkaas waxay ku tusaysaa in wax alla wixii soo galay meeshan laga warhayo ay shaqaaluhu foojigan yihiin runtii waan ugu bishaareynaya waxaan rabnaa in meelaha jaadka ka soo galayo kamid ah wadankeena ayagana inaan wargelino niraahno jaad xilliga loo baahnaa maaha xilli hadda la isu sumeeyo ma taagnin xilli adag ayaan ku jirnaa wax aanan ahayn raashin iyo dawo ma doonayna diyaaraduhu inay soo qaadaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo qofkii ku xadgudbo sidan oo kale ayuu isagana dhaqaalihiisa ugu waynaya waxaan ku faraxsanahay in dhammaan inta ay khuseysay oo dhan isa soo xilqaamaan oo halkaas ay ka soo qayb galaan aan marqaati ka noqono amarka uu bixiyay gudoomiyaha maxkamadda uu bixiyay ayaan rabnaa inaan annagana marqaati ka noqono waxaan ummadda Soomaaliyeed ganacsatada aan uga digaynaa in ay dadkooda sumeynin inay ka taxadaraan waxyaabahan xamuulka aanan ahayn raashinka iyo dawada inta aan ahayn